Assalamu alaikum dawadiyal solo muhaltin namanta haylawiyan muhalkalak sartid jan mahalam sun muhaltan uga sai balad masanid maanta waxaa idin koobi doonaa filim soo baxay sanadka 2020 oo South Korean ah bilowga filimka waxaan arkaynaa wiil dhahay Jungo oo waddo ku soo toosay wuxuu u yeerayaa hooyadii kadib markii uu karo laakiin hooyadiis iyo walaashiis ayaa meel u baxay kadib markii uu biyaha cabo wuxuu ogaanayaa in hooyadiis ay ka tirtay liis iyo xoogaa lacag ah si uu u keeno waxyaabo lagama maarmaanka ah laakiin wuxuu ku jisadaa kombiyuutarkiisa wuxuuna bilaabaa inuu ciyaaro ciyaarta inta uu ciyaarta ciyaarayo saaxiibkiis wuxuu u sheegayaa in gabadh warafyaab leh uu ku wareegay tvda wuxuuna daawanayaa warka wuu cabsaday kadib markii uu arkay tvda waxaa la shaaca ka qaaday inuu virus la yaab leh bedelahay magaaladii uu ku noolay intaa kasii dheer wararka ayaa la sheegayaa in dadka cudurka qaba ay wax cunayaan ay isdilayaan islamarkaana ay u dhaqmayaan sidii ay duurjoogta ah oo kale maamulka ayaa kula taliyay dadka badbaadada ah inaysan kasoo bixin aqalka sare haddii aysan helin wax caawimaad ah maadaama xaaladu ay faraha ka baxday xukuumadda kadib markii uu dhageystay warkaas wuxuu kasoo baxay balkoonka kuwa haday ayaa halkaasi ka baxsanaya iyagoo baabuurtooda ku ramaya markuu si dhaqs ah u soo galay gurigiisa dariskiisa ayaa si qasab ah u galaya gurigiisa wuxuuna u sheegayaa in dhammaan dadka guriga ku jira ay noqdeen zombies waxa uu sidoo kale sheegayaa in walaalkii sidoo kale la dilay oo uu weydiisto ogolaanshihiisa si uu u isticmaalo musqusha Jungo wuxuu bilaabaa daawashada tiiga mar kale kadib markii uu dariskiisa galo musqusha waxaa sidoo kale lagu wargeliyaa wararka sheegaya in dadka qaba ay bilaabaan inay muujiyaan dabeecad la yaab leh wejigooda wuxuu noqonayaa mid cadcad dhiiguna wuxuu bilaabaa inuu ku shubo oo indhahooda casaan dariskiisii oo isku bedelay zombi kadib markii musqusha ka soo baxay wuxuuna bilaabay inuu weeraro Jungo si kastaba ha ahaatee Jungo wuxuu ku guulaystaa inuu isaga baxo oo uu albaabka xoojiyo isagoo kaboojiyihiisa ku dhejinaya albaabka hortiisa wuxuuna helay fariinta hooyadiisa oo u sheegayso inuu si fiican u noolaado wuxuu eegaa taleefankiisa wuxuuna ogaanayaa in dadka ka badbaaday xaaladooda iyo goobtooda ku soo dhejinayaan baraha bulshada si ay u soo badbaadiyaan Jungo sidoo kale wuxuu sameeyaa islamarkuu qoraal ku noolaado warqad kartoon ah ku soo gudbiya internetka isagoo caawinaad ka raadinaya kooxda badbaadinta intaas kadib wuxuu goobta ku fiirinaya isagoo isticmaalaya droonkiisa meelaha Jun uu joogay dhammaan shabakadaha mobile iyo internetka ayaa si tartiib ah u xirmay wuxuu ku soo jeestaa tiihiisa wuxuuna arkaa in isla warkaasna kale iyo mar kale lagu soo celiyay shaashada tiiga hal mar wuxuu maqlaa qof qaylinaya habeenkii wuxuuna helaa sarkaal bilays ah oo la dagaalamaya laakiin zombigii ayaa qaninay iida Jungona wuxuu doonayay inuu iida caawiyo wuxuuna qaylay si uu zombiga u soo jiidada agtiisa nasiibamo zombiga ayaa soo galay gurigiisa Jungo wuxuu isku dhigay sida qof boolaya laakiin dhab ahaantii wuu qabsaday balkoonka zombigina wuu yimaaday isagoo ordayo wuxuuna ka dhacay agga qaboojiisna wuxuu ku dhacay dhulka cuntalana way ka halowday isaga cuntalaan awbela ma noolaani karo ilaa cuntadiisa dhulka ayay ku daalatay hadda haddii uusan helin wax caawimaad ah fursadaha badbaadintiisa waa mid aad u niyad jaban maalinta xigta wuxuu u malaynayaa inuu caawimaad ka heli karo raadiyeyna way shaqayn waayeen intaas kadib wuxuu ku soo baxay gurigiisa si uu la dagaalo zombiga laakiin markii uu soo baxay wuxuu si dhaqso ah u ogaaday inuu qalad weyn sameeyey isla markiiba wuxuu dib ugu noqdaa gurigiisa si uu naftiisa uga badbaadiyo zombies maalinta ku xigtay Jungo wuxuu diyaar u noqday si uu naftiisa la laadiyo si uu isdilo waqtigan xaadirka ah qof ka mid ah dhismihiisa hore wuxuu ku dhuftay waysalka isagoo u yimid inuu ogaado in uu jiro badbaado kale oo ka mid ah dhisnaha ka soo horjeeda taas kadib wuxuu isla markiiba koorta ka qaadaa caniga oo koorta ka soo baxaa si uu arko qofkaas wuxuu ogaanayaa in gabar la dhahay Eva ay ku nooshahay guriga Qulasada Evana waxay ahayd gabar fiican oo geesi ah waxay xitaa dabin ku dhejisay albaabka hore ee gurigeeda kaas oo zombi ah uu ku xayiran yahay oo ay dishaa taas kadib waxay dareemaysaa dambi aad u sababtoo ah waa gabar aad u wanaagsan oo wadnaha markay ogaatay inuu Jungo baajiyeysan yahay waxay hayga ku turtay gurigiisa balse dhul ayuu ku dhacay Jungo wuxuu isticmaalay droonkiisa si uu eega weero wuxuuna untadii ka qaatay iida markii uu bilaabay inuu raro wuxuu arkay nin dadamiya ah oo zombi ah
oo guriga Evan fulayo isagoo isticmaalaya arigii cuntadii lagu keenay. Ninkiina wuxuu jiiday arigii, taasoo ka dhigtay inay Evan miiska ku dhufato oonan mirbeesho. Jumbo wuxuu diray daroonkiisa si uu ka mashquuliyo zombiga. Zombigina wuxuu bilaabay inuu aragtiisa galaan. Ninkiina wuxuu jiibiyey daroontii. Evana way soo toostay, waxayna gacanta ka goysay ninkii zombiga ahaa. Jumbo ayaa go'aansaday inuu aado guriga Quilly si uu helo cunto iyo telefoonka. Markii uu ag imaaday, wuxuu arkay qalab aad u badan, wuxuuna ka soo qaatay telefoonka isgaarsiinta iyo cuntada. Alaab badan oo faa'iido u leh isaga. Milkiilaha guriga wuxuu sidoo kale noqday zombi, oo si lama filaan ah ayuu u weeraray isaga. Jumbo wuu awooday inuu zombiga iska reebo, wuxuuna ka soo cararay agga. Wuxuu cuntada iyo telefoonka u diray Eva si ay isla wada xiriiraan. Waxayna ka sheekaysteen sheeko cabsi badan qaarkood telefoonka adeegsanaya. Maalin maalmaha ka mid ah, Emma waxay si khaldan ah weel ku riday dhulka, taasoo soo jiidatay zombiga oo dhan. Jumbo markii uu tan arkay, wuxuu sameeyay wax kul si uu ka jeediyo dareenka zombiga. Emma markay aragtay inay xaaladdu faraha ka baxday, waxay go'aansatay inay agga ka baxdo iyadoo adeegsanaysa xarigga. Waxayna ku soo dhacday dhulka. Waxay bilowday inay la dagaalanto zombiga oo dhan. Jumbo markii uu tan arkay, wuxuu arkay inay iyada u baahan tahay caawimaad. Saas darteed, isaguna wuu soo dayay, wuxuuna isku dayay inuu iyada caawiyo. Labadooduba waxay si kulul ula dagaalamaan zombies, waxayna bartaan inay gaaraan laba fasideed aad ee wishka. Nasiib daro waxaan halkaas ku aragnaa zombies badan. Labadooda waxaa badbaadiyay nin oo ka imaaday meel aan la aqoonin. Waxa uu labadaba cunto iyo biyo u bixiyaa, wuxuuna u xaqiijinayaa in uu haysto cunto ku filan ilaa imaanshaha helikobtarka. Intaas kadib labaduba waxay cunaan cunto iyo biyaha, kadibna labadooduba waxay dareemayeen wax aad u yaab leh. Waxayna ka shakisanayeen in uu ninka wax ugu daray cuntada. Ka hor inta aysan waxba qabanin, labadooduba waxay ku dhaheen dhulka. Ninkuna wuxuu isku xiray gacmahooda. Dhab ahaantii, ninkaas xaaskiisa ayaa isku beddeshay zombi. Wuxuu Emma geliyay qolka xaaskiisa si uu ku walibo iyada. Nasiib wanaag, Jumbo ayaa miyirsa ashaday. Wuxuuna arkay xadhig oo gacantiisa ku xidhan. Wuxuu u jeediyey qoriga, laakiin wax saameyn kuma laha, ileen ninku si dhab ah ayuu jecel yahay xaaskiisa. Intaas kadib ninkii wuxuu dayay xarigii. Ugu horreyntii waxay maqlayeen qaylo, kadibna waqti yar kadib way isi tegaysaa. Sidaas darteed ninkii albaabka ayuu furayaa si lama filaan ah, waxaa lagu tuuray xaaskiisa xaggiisa. Intaas kadib naftu waxay dishay ninkeedii. Emma waxay labadoodaba ku dishay qori. Dhegaysiga dhawaaqa rasaasta, dhammaan zombies waxay bilaabeen inay soo baxaan. Halkaa waxaan ku oganaynaa in Emma la qaninay. Jumbo ma rabin in aysan noqoto zombi. Sidaas awgeed waxay weydiisatay Jumbo in uu toogto. Jumbo wuu ogolaaday rabitaankeeda, isla markuu isku dayo inuu toogto waxay maqlayaan dhawaaqa helikobtar. Labadooduba waxay helayaan rajo ah inay naftoodii badbadsani karaan. Isla markiiba labadooduba waxay bilaabaan inay tagaan guriga korkiisa oo la dagaaltamay zombiska. Markii ay galeen safafka kore waxay arkeen inay helikobtar ku tagtay. Zombies badan ayaa imaday oona jibiyey albaabka. Waxayna u dhaqaaqeen xabari. Jumbo wuxuu bilaabay inuu zombiska ku togto qorigiisii. Labadooduba waxay isku dayeen inay badbaadiyaan noloshooda. Kadibna si lama filaan ah, helikobtar military ayaa halkaas ka soo baxday, waxayna bilowday inay toogato dhammaan zombiska. Ugu dambeyntii waxay badbaadisay noloshoodii. Marka helikobtarku ka baxday xaggas, shabakadda iyo adeegga internetka ayaa noqday mid firfircoon. Labaduba waxay ku faraxsan yihiin inay arkaan fariimaha iyo wicitaanada saaxiibadoodii. Intaas kadib waxay bilaabaan inay daawadaan midba midka kale si farxad leh. Waxaa lagu muujiyey dhammaadka filimka sida kooxda badbaadinta ay halkaas gaareen iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada, sababtoo ah bilowgii filimka waxaan aragnay in Jumbo oo ku wargeeyey goobtiisa qoraal ahaan. Filimkana wuxuu ku dhammaanayaa halkan. Waad ku mahadsan tahay daawashada.